السلام الله عليكم صاحبي ku soo dhawaada YouTube channel-kayga Mustafa Al-Adaala maanta waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa sida ugu fudud ee gabar jacayl xad dhaaf ah loogu abuuri karo. Fariintan kama turjumayso inaan leeyahay gabar kasta jacayl ha lagu abuuro si loo dhibaateeyo ee kaliya waxaan ula jeedaa fariintan inay isticmaalaan lamaanaha isjecel si ay jacaylkooda ugu horumariyaan. Haddaba mas'uul kama ihi fariintan qofkii si qaldan u isticmaala. Haddaba wiilow ma jeceshahay inaad gabar jacayl xad dhaaf ah ku abuurto? Haddii jawaabtaadu haa tahay marka horeba iska ilaali gabadhan inaad si degdeg ah ku barato waayo ma wanaagsana jacaylka degdegta ku bilowda waayo dhaqsi ayuu dhamaan doonaa. In badan la kaftan si aad u ogaato waxyaabaha ay neceb tahay iyo waxyaabaha ay jeceshahay. Waqti badan geli markastana u sheekay. Markasta oo ay sheekadiinu marayso meel macaan telefoonka ku jar ama qadka ka bax si uun uga bax adigoo u sheegaya markaas inaad meel ka degdegayso ama meel aad aadi doonto oo fariintaas ama sheekadaas macaan ha u dhameystirin. taasi waxay ka caawinaysaa marka xiga inay iyadu ku soo raadiso oo ay ku soo wacdo si ay sheekadii meel dhex idin mareysay aad ugu dhameystirto. Markasta sheeko macaan u bilaaw oo ku bargo. Soomaalidu ama bini'aadamka dhan waxay jecel yihiin in sheekada loo dhameystiro oo aad bay u warjecel yihiin. Marka saas darteed si ay marka xiga ku soo wacdo markasta sheekada ku bargo adigoo iska dhigaya qof yani maaragtay meel ka degdegsan ama sabab kale u yeelaya. Kedis uga dhig kulankiina. Tusaale ahaan markii aad rabto inaad la kulanto ha u sheegin oo ku soo socda ha dhihin si kedis u wac oo ku dheh waxaan taaganahay gurigaada iridiisa ee ma ii soo bixi kartaa. Markaas taas waxay ka caawinaysaa in si fudud aad ku kulantaan kulankiinu uu qaato daqiiqado yar. Marka ay ku soo baxdo oo aad kula kulanto afaafka hore ee gurigeeda waxaad u sheegtaa in aadan ogeyn sababta aad halkaas u imaaday laakiin aad dareemaysay wadna garaac xad dhaaf ah markaad guriga ka soo bixisay. Taasina ay ka turjumayso inaad rabitaan xad dhaaf ah u qabto iyada. Markasta oo iyadu ka codsato inaad kulantaan ha ka ogolaanin. Hana ka diidin ee waxaad samaysaa cudurdaar. Yacni waxaa jira wax u dhaxeeya diidmo iyo ogolaasho oo ah cudurdaar. Abaayo waan ku imaan lahaa laakiin waxaan rabaa inaan la kulmo madax ama dad mas'uul ah ama meel ayaan ka balansanahay ama shaqo ayaan ku jiraa adiga cudurdaar u sameeyo ku qanci karto. Taasi waxay ka caawinaysaa inaad adiga noqoto ama ay ku maleyso qof lama helaan ah oo qaali ah. Waxay ku moodi doontaa qof meel sare jooga oo aan si fudud lagu heli karin. Markasta uga sheekay inaad saaxiib la tahay dad madax ah ama aad la kulanto ama aad la fariisato dad markaas magac leh oo ay idu taqaano. taasi waxay ka caawinaysaa biri markaad isbarataan inaysan ka masayrin ama xitaa waxa uga sheekeyn kartaa waxa leedahay qof asxaab badan ahay qof oo waxaan dad badan saaxiib la ahay. taasi biri waxay ka caawinaysaa inaysan ka masayrin ama aysan mashquulkaada faraha badan si kale u fahmin waayo shalay ayaad u sheegtay inaad asxaab badan tahay. Okay, intaas kadib waxay iska dhaadhici doontaa inaad tahay nin jecel oo wax kastaba yacni maaragtahay u sameyn kara oo meel sare jooga. Saaxiib ka dhigo qof iyada yaqaan si uu uga sheek qof labadiinaba idin yaqaan saaxiib ka dhigo macnaha si uu uga sheekayo guulahaada ayadoo markasta waxay dareemi doontaa in ay qofkaas ku weydiiso ama ay ka wareysato. Ay ku qasban tahay inay waxyaabo adiga kugu saabsan qofkaas weydiiso ka waran guulihiisa muxuu qabtaa muxuu ka shaqeeyaa iyo wax la mid ah. Qofkaasna guulahaada ayuu uga sheekay doonaa. taas waxay ka caawinaysaa inay si xad dhaaf ah kuu sii jeclaato. Markasta oo aad la kulmayso isku day inaad soo xifdiso xogaa erayo geeraara ah oo amaan ah. Xogaa ayaad soo xifdinaysaa marka aad hor istaagto ayaad ku hurgufaysaa ama indhaha uga tuuraysaa si ay si xad dhaaf ah ay u maleyso yacni inaad tahay nin hibo iyo hal abuurba eebasi. Adigana intaas yar ayaad soo xifdinaysaa. Jirkeeda xubin oo amaan markasta ilaa ay ka xishooto oo indhaha ka qabsato oo ay kaaga sii jeesato. mar walba haddii aad saas u samayso waa ballan si xad dhaaf ah ayay ku jeclaa doontaa. waa hubaal hore ayaa loo soo tijaabiyey arrimaha noocan ah. Haddaba intaan sameey fariintaana si qaldan ha u adeegsan oo kaliya u isticmaal lamaanahaada aad rabto inay si dhab ah ku jeclaato adiguna markaas aad jeceshahay. Fariintan mas'uul kama ihi qofkii si qaldan u isticmaala. Haddaba saaxiibadaada halkan uga wac oo commission garee si ay fiidiyowgan kula daawadaan. mahadsanidii.